assalaamu calaykum kadib intii uu islaamay waxa barnaamijyo kala duwan oo bara bulsheed oo aanu lahayn la soo dhigdhigayay laga soo diinayay hadallo iyo khudbado uu qabtay oo uu kaga hadlayay nidaamka caalamka loo xakameeyo xorriyatul qowlku in ay tahay afka baarkiisa iyo habka mas'uuliyaddu ay doonayso inay aadamaha u wada adoonsato taasoo keentay isweydiin bilaa la dilaa gebigiisaba mar haddii barihiisii bulsheed ee la xidhay aanay saamayntiisii joojin ee ayba sii siyaadisay cadowgii koowaad ee mas'uuliyadda iyo nidaamka ay caalamka u dejisteen ee islaamkana uuba qaatay oo uu diintaas galay ninkan aynu ka hadlaynaa waa Andrew Tate dabcan sidaad ka aragtaan muuqaalada isagoo mawduuca ka hadlayana wuxuu leeyahay sida tan Now I have to make sure they don't try and suicide me because what happens if you don't shut up eventually that's what comes next. So inay dilaan ayay noqon kartaa tallaabada xigta iminkana waxaan filayaa inay shirqooli doonaan oo haddii aad aamusi weydo natiijadu waa inay ku dilaan hadalkiisaas waxa uu muujinayaa in xidhista akoonnadiisii ay ahayd digniintii kama dambaysta ahayd iminkana uu filanayo in laga takhaluso gebigiisaba waxa uu marar badan adeegsaday ereyga The Matrix sida halkan inooga muuqata I always knew that the Matrix existed. the Matrix is real. I've literally escaped the Matrix in nearly every form. And the reason I call it the Matrix is because a false reality. wuu garanayaa macnaha ereygan The Matrix qofka daawaday filimkani The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. Soomaalidu waxay u taqaanaa ama berigan yaryareen ee aanu daawan jirnay aanu u naqaanay filimka xawilaadda The Matrix in systemka caalamka loo dejiyey uu la dagaalamayo xaqiiqada nololeed oo uu doonayo qaab uu isagu dejiyey inay dadku wada noolaadaan qof kasta oo xaqiiqadaas fahmo oo isku daya dadka in uu ku baraarujiyana gaarkiisa loo ugaadhsanayo iyadoo sumcad dil hagardaamayn iyo haddii ay kalifto shirqoolba lagu samaynayo nidaamkaas filimka ka sheekaynaya ayaa la yidhaahdaa The Matrix almasfuufa xawilaadda dad wada xawilan oo nidaam loo dejiyey ku wada takhlan laba muuqaal oo uu kaga hadlayo mawduucan ayaynu qodobada ugu muhiimsan ka soo qaadanaynaa qofka doonaya inuu wada daawadana sanduuqa hoose descriptionka ayaanu soo dhigaynaa linkiyadooda waxa uu leeyahay nidaamka Matrix-ka ee balaayadaas mas'uuliyaddu ay dejisay ee nidaamka caalamka lagu dhaqayo ahi waxa uu dadaal walba ku bixinayaa inuu caqligaaga kantaroolo qof kasta oo adduunka ku nool inuu caqligiisa kantaroolo inta ugu badan ee dadka ahna uu ka jeediyo xaqiiqada caalamka iyo siday u dhisan gareeyeen waxa uu leeyahay mar kale wax kasta oo TV-ga ka aragtaa waa hab laga soo shaqeeyay oo caqligaaga lagu kantaroolayo noloshana lagaaga been sheegayo waxa uu leeyahay mar kale nidaamka maanta adduunka loo dhisay waa adoonsigii la yaqaanay oo casriyeysan barigii hore adoonku maalinkii oo dhan ayuu shaqayn jiray ugu dambeyntina waxa la siin jiray guri uu hoydo iyo cunto iminkana maalinka oo dhan ayaad shaqaynaysaa waxaana lagu siinayaa lacagtaasna waxaad ku bixinaysaa cunto iyo hoy barigii hore dawladdu waxay heli jirtay adoomo free ugu shaqeeya iminkana way joojiyeen nidaamkaas oo waxa ay dadkii u sameeyeen habay ugu shaqeeyaan lacag darteed lacagtaasna dawladda ayaa daabacaysa maadaama aanay dawladda waxba ku qaadanayn lacagtaas aad maanta oo dhanba darteed u shaqaynayso inay helaan adiguna aad noloshaada u horayso helitaanka lacagtaas weli waxaad u tahay adoon free iyaga ugu shaqaynaya waana nidaamka caalamka loo dejiyey lamana doonayo inaad ku baraarugto waxa uu leeyahay mar kale waxa ugu wanaagsan ee aad samayn kartaa waa inaad fahanto xeerarka dheeshan ay dhiseen adiga oo la jaan qaadayana aad ka xoroobi kartaa dabarka ay kugu xidheen ee adag ama si kale baro sidii aad adigu kantarooli lahayd garaadkaaga ee aanay cid kale kugu go'aamiseen baahiyahaaga rabitaanadaada xiisayaashaada lifestyle-kaaga iyo qaab nololeedkaaga haddii aynu hadalkiisan dhan kale iska taagno waa hubaal in qof waliba uu isu arko xor wax kastaba u madax bannaan laakiin waxaa xaqiiqo in qof kastoo inaga mid ay qowl qoorta u geliyeen oo sida uu uga fakadaa ay adag tahay se masaaxadaas iyo xuduuddaas ay u dejiyeen qof waliba uu dhex marmarayo oo uu xor isugu arko ayna yar yihiin dadka isku dayey xuduudkaas inay dhaafaan oo waxa ka shisheeya ay arkaan dadkaasna sida isaga oo kale loo arko dad waalan iyo kuwa aragti shirqool aaminsan iyo waxyaabo la mid nidaamkaas The Matrix-ka ee adduunka lagu xakamaynayaana uu dagaal ciriyo dhula ku qaado waxa uu leeyahay mar kale ujeedkaygu waa inaan dadka ka saaro gacanta nidaamka adoonsiga oo aan tuso xaqiiqada in wax kasta oo loo sheegayba uu ajandi ka dambeeyo waxa uu leeyahay mar kale haddii aad u malaynayso inaad nidaamka caalamiga ee Matrix-ka ee nolosheenna oo dhanba qoobada yar lagu soo ururiyey ka baxsanayso ma awoodid oo waxa uu nidaamkaasi ku dhex jiraa moobilkaaga ha xidhnaado ama ha shidnaado dabku ha dhaco ama ha dabaysnaado wax kasta oo kugu saabsanba nidaamka caalamiga ahi wuu la socdaa sidaas ayuuna ugu dadaalayaa inuu addoonnimadaas ku noolaanshaha xayndaabkiisa kugu haysto waxa uu leeyahay mar kale dadka badigoodu waxay u malaynayaan inay dawladdoodu danaynayso balse dawladdu waxa ay doonayso waa addoommo uun fikradda inay dawladdaadu ku danaynaysaana waa huuhaa wax kasta oo ku baraarujinaya dawladdaadu way ka ilaalinaysaa
addoonsi toosa oo shaabug lagula dhacayana hadda ma jiro laakiin caqliyadda addoonka ayaa lagu samaynayaa oo mindsetkaaga ama caqliyadaadu qaabka ay u shaqaynayso ayaa laga dhigayaa tii addoomihii berigii hore wuxuu leeyahay mar kale dadka badigoodu waxay iska aaminsan yihiin aragtiyo iyo fikrado ay soo maqleen haddaad weydiiso xaggaad ka keentay yaa kuu sheegay xaggay kaa soo gashay fikraddani maxaad sidan oo dhan ugu aaminsan tahay ma garanayaan laakiin waa lagu brograamiyey inay sidan u fekeraan oo erayadaas aanay macnahooda garanayn ay sida dhallaanka ugu hadaaqaan waxa uu ka wadaa Andrew Tate fikradaha xurriyatul qowl insaaniyadda xuquuqda aadamaha ilaalinta xuquuqda dumarka iyo hantaatacyada kale ee la midka ah ee iminka inaga dalkeena soo gelaya ee kuwa xataa walaalaynaya aanay garanayn macnahooda dhabta ee ay ku hadaaqayaan maadaama ay galbeedku fikradahaas dabada ka wadaan waxa uu leeyahay mar kale nidaamka addoonsiga ee caalamka loo sameeyey waa in hantiiruhuna uu hanti uun kororsado faqiirkuna faqri uun sidii berigii hore uu addoonkuna addoonnimada uunu sii kororsan jiray sayidkuna awoodda iyo saamaynta uunu sii kororsan jiray waxa uu leeyahay mar kale wax xorriyad la yidhaahdaa ma jiraan xataa qofka xaqiiqada fahmaa waxa uu ka baqayaa inuu shaqadiisa waayo mushaharkiisa uu waayo barihiisa bulshada la xidho si uu masaalixdiisaas u ilaashado ayuu uga aamusayaa waxa hareerihiisa ka dhacaya wax kasta oo uu fahmayna uu isaga indhatirayaa oo uu danihiisa u ilaashanaya markaynu hadalladiisaas aynu inta yaryar ka soo qaadanno isku soo xoorinno waa sababta looga baqay in Andrew Tate uu dad badan oo nidaamkaas addoonnimada wejiga xorriyadda loo sameeyey ah ku dhex nool baraarujiyo kadibna afka looga xidhay ee barihiisii bulshada hal markhadka looga wada saaray ay sababtu tahay mawjadii dadka sidatay cagsigeeda ayuu dabaashay nidaamka caalamka loo dhisayna ma oggolaanayo marnaba in ay taasi dhacdo oo heedhe aaway xorriyatul qowlkii mooji aaway mutasaamixnimadii iyo in uu qofku tolerance noqdo oo dadka ka aragtida iyo afkaaraha duwan uu aqbalaad u yeeshaa mooji aaway xuquuqdii aadamaha ee qof waliba uu noloshiisa iyo waxa uu aaminayo xorta u ahaa mooji waxaasoo dhammi waxay shaqeeyaan uun marka iyagu dantooda ka dhex arkaan ee marka kale si cad oo aanay geedna ugu soo gaban ayay ganafka ugu dhuftaan Andrew Tate ma aanay joojin tallaabadaas ay qaadeen ee dardar iyo dhiiranaan ayuuba kasii qaaday waa barihiisii bulshada ee la xidhaye taasina waxay kaliftay in iminka uu xataa isagu fisho cid kasta oo arrimahan baadho oo fahanta nidaamkuna ay filato in la sharqooli doono dhowe iyo dheeri goorta ay doontaba ha noqoto oo waxa uu baadhay oo uu og yahay waxyaabaan loogu talagelin inay caamadu ka war hesho xadkii nidaamka caalamiga ahna xoogaa uu ka yara tallaabay dhibaato weyna taasi ma laha ee dhibaatadu waa in ereygiisu uu balaayiin qof gaadhayo hadda ma aha malaayiin waa balaayiin taasina ay keensanayso in Tate il gaara lagu eego haddii uu ka hakan waayena la marsiiyo wadadii la marsiin jiray shakhsiyaadkii isaga ka horreeyey ee dadka inay baraarujiyeen isku dayey weliba waxaa baqdinta arrinkaas laga qabaa ay sii badatay kadib markii uu islaamay oo ay ka baqeen xulkaas nidaamka caalamiga dejiyaa inuu malaayiin qof saameeyo oo ay islaamaan oo hal il ayaa lagu hayay ee markan laba indhood ayaa lagu eegayaa sidaas awgeed ayaa looga baqayaa in sidii caadada u ahayd ay sharqool ku dilaan maadaama uu aamusi waayey markay barihiisii bulshada xidheenna uu kaba sii daray idinka ayaa wixii kale ee xog mawduucan ku saabsan raadsanaya waxaan rajaynayaa inaan qodobkaas si qurux badan isula fahamnay wasalaamu calaykum